Bismillahirrahmanirrahiim. Magacaygu waa Dr. Darajo. Halkan waxaan iigu soo gudbin doonaa sidee ayay hooyo ku ogaan kartaa inay uur qaaday. Hooyadu waxay ku ogaan kartaa inay uur qaaday dhowr calaamadood ama tijaabooyin fudud. Calaamadda koowaad waa caadada oo istaagta. Tani waa calaamadda ugu caansan. Calaamadda labaad waa lalab ama matag. Badanaa subaxii waxay hooyadu yeelan kartaa matag, naasaha oo isbedela, xanuun ama culays, ama ibta hore oo madoobaata. Daal iyo hurdo badan. Hooyada uurka leh waxay yeelan kartaa daal xataa iyadoon shaqo culus aan qaban. Kaadida oo badata. Kaadida oo soo noqnoqota, gaar ahaan habeenkii. Cunto nacayb ama rabitaan gaar ah. Hooyadu waxay nacaysaa cuntooyin hore oo ay jeclayd, waxaana ay dalbanaysaa cuntooyin gaar ah. Heerkulka jirka oo kordha. Haddaba badanaa calaamadahan ma muujin karaan uur. Mararka qaar waxay muujin karaan xanuuno kale. Haddaba haddii aad calaamadahan dareento, waxaad mari kartaa tijaabada uurka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo pregnancy test-ga. Waxaa jira laba hab. Habka koowaad waa urine test-ga. Habkani mararka qaar isku halayn ma leh. Waxaa la ogaan karaa 7 ilaa 14 maalmood kadib. Waqtiga ugu fiican ee tijaabada la mari karaa waa subaxa hore. Baroor test-ga ayaa isaguna jira. Habka dhiigga isaga waqti hore ayaa la ogaan karaa 5 ilaa 7 maalmood kadib. Badanaa waa la isku halayn karaa, laakiin waxa uu kaaga baahan yahay goob caafimaad. Fadlan haddii aad tijaabooyinkan hooyo aad wada martay aad positive noqotay, waxa lagaaga baahan yahay ama uur aad yeelatay, waxa lagaaga baahan yahay inaad la xiriidho ama la xidhato goob caafimaad antenatal care si loola socdo badqabka ilmaha iyo badqabka hooyada. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ka ii saarto, like-na aad iigu dhufato, share-kana aad ila wadaagto.